السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داودyaal kusoo dhawaada muuqaal cusub oo ku saabsan qiso yar oo ku dhacday gabar Soomaaliyeed. Qisadan waxay ku bilaabanaysaa sida tan gabar iyo wiil baa waxa ka dhaxeeyay xiriir jacayl. gabartii wiilka aad bay isku jeclaayeen waliba farxad bay isa siin jireen maalin walba. maalin maalmaha kamid ah gabartii ayaa wiilkii waxay ku tiri maanta waxaan ka qaadayaa imtixaan. wiilkii waxa uu ku yiri gabadhii waa maxay macaanta imtixaanka. gabadhii waxay ku tiri 24 saacadood ma wada hadlayno mana wada kulmayno. gabaad wiilkii waxa uu ku yiri 24 saacadood iska daayay daqiiqad xitaa kuma moogaan karo. gabadhii waxay ku tiri ma ii samayn kartid miyaa intaas. bacdi wiilkii gabadhii waxa uu ku yiri asigoo dhibsanayo macaanta wax walba dartaa waa uu samayn karaa balse wiilka wuxuusan ogeyn imtixaanka gabadha waxay kala jeedo. wiilkii gabadhii sidii ayay ku kala tageen 24 saacadood ma wada kulmin mana isa soo wicin. 24 saacadood ka bacdi wiilkii waxa uu soo aaday guriga gabadha soo faraxsan oo isdhahayo maanta imtixaankii waa aad ka soo baxday. wiilkii markuu uu guriga yimid wuxuu arkay murugo naxtin iyo oohin. kadib wiilkii meel dheer ayuu wuxuu ka arkay gabadhu jeclaa gabadha dhalatay oo ilmeynayso. isla markii wuxuu soo aaday dhinacay gabadha. gabadhii ayuu wuxuu ku yiri sawda maxaa dhacay. kabacdi gabadhii waxay ku tiri ma ogid miyaa waxa dhacay. may ayuu ku dhahay. kabacdi gabadhii waxay tiri simra waa ay dhimatay. markaas ayuu wuxuu dhahay maxaa ku dhacay. kabacdi gabadhii waxay tiri simra waxay u dhimatay cudurka kansar. wiilkii meeshii ayuu ku sooxay. daqiiqada kabacdi markuu uu soo naaxay sawda ayaa warqad u keentay waxayna ku tiri simra taajacleed ayaa warqadan kaaga tagtay. wiilkii warqadii asoo ilmeynaya ayuu kala furay. warqadda waxaa ku qornay maan jecleen inaan kaaga tago murugadan ama aan kugu celiyo dunida. waxaan soo wada qaadanay waqti fiican iyo maalmo farxad ku dheehan tahay. imtixaankii waa aad ku guulaysatay balse waxaan kaa codsanahay maalin walba inaad sidaan ii samaysid. walaal haddaa qisadan ka heshay laag noo saar si aad ula socoto muuqaalada xigo janaalka subscribe noo saar.